بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسر دوادا عشر كي كوبية طبناد كتاب كي سفينها وحان عشر كان إن شاء الله ما أنت كبلا بالدوناه أوقات أما وقتياش الصلاة وقتياشان بدن كود وحي قصيان adduunka dhan ay quseen laakiin qayb ka mid ah waxaa laga yaaba wadamada aan qoraxdoodu sida caadiga loo helin inay yacni qaabkan aan loo fiirinayn ee ay masaa'il kale u baahan tahay faslun awqaatu salaati salaada waqtiyaalkeedu 5 wey awalu waqti duhri salaada duhur waqtigeeda bilowgiisu zawaalu shamsi qoraxdii inay wareegto weye oo cirka kala barkiisa ka wareegto u wareegto xagga dhicitaanka xagga galbeedka u wareegto marka waa waqtiyada yani waa wadamada qoraxdii si saxa ugu soo baxdo ee wadame waxaa jira qiyaasaya waqtigii oo aanba qoraxdiiba arkayn wa aakhiruhu duhurka waqtigiisa marka ugu dambaysana masiiru dilli shay shayga hooskiisa oo la mid noqda weye midlahu shaygoo kale oo shayga yani wax kasta hooskoodu markii ay ayaga jeedsamaanna duhur waa dhammaaday duhurka kow qoraxdu cirka kale barkiisa hadday xagga uga wareegtay aheyd haddii qoraxdu ay la ekaato hoosku uu la ekaado qof kasta ama shay kasta waxa weye markii laga soo reebo masalada soo socota casir aa soo galay duhurna waa bax hayra dilli listiwaa'i ekaashaha hooskooda haddii laga reebo oo waxa weeye ekaashaha waxaa laga wadaa marka qoraxdu ay cirka kala barkiisa joogto qofka hoosku waa ku soo aruuraya hoos yaroo waxaa jira qofka ku soo aruura qoraxdu kala bar markay joogto hooskaas yarkaa markii laga reebo hooska kale ee qofka ka baxa markuu la ekaado shay kasta qofka iyo shay kastaba hooskaas la ekaaday wuxuu tilmaamayaa duhurna inuu dhammaaday casirna uu bilowday wa awalu waqti alcasri casirka waqtigiisa bilowgiisu idaa waqtigii weeye saara uu noqdo dillu kulli shayin shay kasta ama walax kasta hooskiisu markuu noqdo midlahu shaygaasoo kale shay kasta marka hooskiisu la mid noqdo casir waa bilowday wazaada qaliilan oo wax yarna uu ka kordho yacni wazaada qaliilantu waxay noo cadaynaysaa in waqtigii soo gala maahane haddii shayguba uu hooskiisu la ekaado duhurna waa baxay casirna waa soo galay wax hal minut uma dhexey xataa labadoo mid hadduu baxa kii kalaa soo galay wa aakhiruhu casirku meesha uu ku dhammaadaahina cinda guruubi shamsi qoraxdii dhicitaankeeda agteeda weye haddii qoraxdii ay dhacdo casir waa dhammaaday maqribna waa soo gale wa awalu waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa bilowgiisu guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda weye maqrib wuxuu bilowda qoraxduba hadday dhacday wa aakhiruhu maqrib waxaa u dambaysa guruubu shafaqi shoocaacii ama liilankii dhicitaankiisa alaxmari guduudnaa oo waxa weeye waxaa jira qoraxdu markay dhacday kabacdi cirku boor ayuu isku bedelayaa yacni dhowr midabaa dhalata mid guduud ah ama casaan ka aragti dheh iyo mid boorboora iyo mid cadaan ah midka guduudka markuu dhaco maqrib waa xirma waa dhammaaday cishihiiyaa bilaabanaya wa awalu waqti alcishaai cishaha waqtigiisa bilowgiisu guruubu shafaqi shoocaaci oo dhaca weye alaxmari ee guduudnaa shoocacaas ama liilankaas ama midabkaas casaanka ah markuu dhaco cishaa bilowda maqribna waa dhammaaday wa aakhiruhu cisha meesha u dambaysana tuluucu lfajri fajarkii dhalashadiisa weye asaadiqi runlowga yacni salaada subax bilowgeeda weye salaada subax markii ay dhalato cishaa dhammaaday alfajru saadiq waa iftiinka ama waa beriga qofku markuu fiiriyo ee uu leeyahay salaadii dhalata uu run sheegayo waxaa jira fajar kaadib la yiraahdo oo yacni iftiin ka soo horeeya salaada subax oo qofkii arkaahay hadduu yidhaha salaada dhalatay qofkaasaa been sheegaya marka midna dadka arkaa been sheegay midna dadka arkay arun sheegaya saasa laga wadaa
waxa weeye dadka qayb a yiraa cishuhu wuxuu ku egyahay 12 ama 6 saaco habeenimo habeen kale barkiis laakiin saas maaha wa awalu waqti subxi salaada subax waqtigeeda bilowgiisu طuluucu lfajri fajarkii dhalashadiisa way asaadiq runlowga ah fajarka runlowga ah oo hadda cishihii ku ekaa markuu dhasho salaadii subaxaa dhalatay suxuurna lama cuni karo cunto markaas ka bacdi cishana waa dhammaaday wa aakhiruhu fajarkii ama salaada subax meesha ugu dambaysaahi طuluucu shamsi qoraxda inay markay dhalato wey qoraxda hadday soo baxdo salaad subax waa u dhammaatay hadda wuxuu noo sheegayaa markii maqribka iyo cishaha soo marayna waxaan dhihi ashafaqu alaxmar liilanka ama midabka casaanka ah hadduu dhaco maqribaa dhammaaday cishaana bilowday midabadu noo sheegaa marka al ashfaaqu midabadu iyo mashoocacyadaas ama liilamadaasi 3 waa 3 axmaru waa mid cas ama guduud ah wa asfaru waa mid boor leh boorboor ah wa abyadu waa mid cadaan ah al axmaru kan guduudka ama casaanka ah maqribun maqrib wey waa waqti maqrib hadduu dhacaa maqribkuu dhammaadaa wal asfaru kan boorka ah iyo wal abyadu kan cadna cishaa'un cisho wey waa waqti cishay ku jiraan laakiin in laga daba dhigaa fiicanoo wayundabu waxaa la sunneeyaa ta'khiiru salaati alcishaa'i cishaha salaadiisa waqtiyadeeda salaada cishaa in la dibdhigo a sunno ah ilaa an yagiiba shafaqu shoocaaci ilaa uu ka dhaco al asfaru ee boorka ahaa lal abyadu kan cad maya waa qaldan yaha umale iyo wal abyadu kan cadba yacni midabadaas kitaabkana qaldan midabadaas ilaa ay dhacaan in oo cishaha dib loo dhigo aa fiican ee aan lagu degdegin oo la hubsado marka waqtiyadan sida saxda dadka waqtigii caadiga ahaa ee wadamadaas carabta iyo africa iyo jooga ay u noqonaysaa laakiin dadka kale waqtiyadii ciriiriga qayb isku yihiin duhurkao kale iyo waxaa dhici karta yani dadkaas waa inay la socdaan waqtiyada oo dadka saacadaha islaamku ay ku xisaabtamaan dadka qurbaha ku nool sida ay ugu xisaabtamaan laakiin qofku yuusa isku dayin inuu ka hormariyo salaadii waqtigeeda waxaa ugu badan cishihii oo kale waqtiyada oo maalinku badan yahay waxaa dhici karta cishihii inuu aad u daaho maqribkii uuba soo galaba habeenkii waqti dambe ka bacdi marka dadka qayb iska midahoo shaqeeya waxaa dhici karta inay fududaystaan oo ay yidhaahdaan waa hormarinaya cishihii waqtigiisoo la gaarin yaan la samayn taas khatar weeye adoo adduunyadaada ka fakaraya kaliya haddaa cisha iska dejid halis weeye waxaa kuu roon walba marka maqribka uu daaho maqribka uu 9 fiidnimo ka bacdi soo gelayo inaad waxaa roon aad de galabtiiba shaqada markaa kasoo dhammaatid xoogaa hore u seexatid haddaa heli kartid ee aad maqribka usoo kacdid hadhowna cishaha aad sugtid mararka cishuhu uu 11 ka bacdi uu soo galaya taas inkastoo ramadaankii badanaa u badan tahay laakiin qofku inuu dadaalo daacadiina la yimaada laga rabaa shaqadiisiina uu ka fakaro ilaahayna hana karsiiyo halkan waxaan kaga hadlaynaa waqtiyaal salaadaha qaarkood aan la ogolayn 5 waqti oo salaadaha qaarkood aan la ogolayn maxay yihiin salaadaha aan la ogolayn horta 5tan waqti oo soo socota ee axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku soo aroortay salaad kastoo farad ah waa la tukan karaa ama qalla ha ahaato badanaa qallayba u badanta yacni salaad kasta oo farada waa la tukan karaa waqtigan 1 waxaa kaloo la tukan karaa sunnadii waqti leh sunno waqti leh hadday tahayna waa la tukan karaa waxaa kaloo la tukan karaa sunno sabab leh laakiin sababkeedu uu ka horeeyo ama uu la xiriirsaday laakiin sunno sabab ka dambeeya leh iyo salaad sunnaho iska mutlaq ah lama tukan karo macnaha sunno sabab leh waxa maalan ba salaad sunnaho waqti leh waa la yaqaanaa sanooyinka waqtiga leh raatibadii iyo ka mid a sunnada sababka lena waxaa laga wadaa salaad sabab keentay maalan ba qorax madoobaad bil madoobaad yacni salaadahaasaa la yidhaahdaa sunno sabab leh masjidka markaa soo geshid oo kale taxiyatulmasjid masjidka salaamtiisii kuwaasaa la yidhahda marka sunno sababkeeda uu la xiriiro waa midda masjidka markaa soo gashay kuwa sababku ka horeeya waa qoraxdii bishai markay madoobaadaan kuwaas waa la tukan karaa waqtiyadan sunnada aan waqtigan la tukan karin waa 2 maado sunno sabab ka dambeeya leh oo sababkii aad u samaynaysay uu ka dambeeyo iyo mid aan sabab lahayn iska sunno aad iska wadaysida
sunnada sababka ka dambeeya le maalan waa salaatu listikhaara markaad istikhaaraysanaysid ee tukanaysid si aa u ducaysatid iyo sunnadii maalan ba xaji aa rabtay inaad xiratid sababkii waa ka dambeeya labadaas salaadood oo sababka leh sababkan uu ka dambeeya waqtiyadan lama tukan karo sunnooyinka kale iska caadigaana waqtiyadan lama tukan karo oo aan sabab lahayn aad rabtay hadba salaad inaad iska tukatid laakiin sunnooyin kale o dhan waa la tukan karaa raatibadii la tukan karaa ciiddii la tukan karaa qorax madoobaadka la tukan karaa bilmadoobaadka la tukan karaa taxiyatulmasjidka la tukan karaa sunnadii weysada markaad soo weysaysatida la tukan karaa faslun taxrumu waxaa xaaraama asalaatu salaad ayaa xaaraama allatii salaadaasoo laysa lahaa aan uusa u sugnaanin sababun sababkaasoo mutaqadimun horeeya wax sababahoo ka horeeya ma leh walaa muqaarinun mid la xiriirsadana ma leh yacni farad maahan sabab ka horeeyana male sabab la xiriirana male waa kasoo sheekeyna marka maxay tahay waa mid sabab ka dambeeya leh sida istikaaradii salaadii xirashada iyo midaanba sabab lahayn oo iska sunno caadi o iska tukanaysa fii 5 awqaatin waqtiyaal oo 5 ah ayay xaaraamtahay salaadu waa waqtiyadeed cinda طuluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda agteeda qoraxdu markay soo baxdo xataa tartafica yacni 5tan waqti 2 waqtina salaad haddaad tukatid ayay xaaraam noqonaysaa faradyada markaad tukatid 2 waqti 3da kalena mar kastaba waa xaaraam salaado cinda طuluuci shamsi qoraxdii markay dhalato yacni agteeda ayay xaaraam tahay sunnooyinka aan soo sheegna xataa tartafica ilaa qoraxdu ay kor noqoto qadra rumxin waran carbeed qadarkiisoo kale yacni ilaa 7 dhudhun oo kale qoraxdu markay soo baxdo inta aad u arkaysid ilaa 7 dhudhun oo kale markii ay gaarto wixii ka horeeya inta ay soo baxday intaas ka gaarayso yacni waxa weeye qoraxda salaad sunna ma tukan kartid oo sabab aan lahayn ama sababkeedu ka dambeeyo wa cinda alistiwaa'i akaashiha agteeda marka qoraxdu ay ku eg tahay kala barka cirkana sunnooyinkan ma tukan kartid ee aysan u wareegin xagga galbeedka fii gayri yowmi aljumucati maalinka jumcada haddii laga reebo xataa tazuula ilaa ay wareegto ay cirka kala barkiisa ka wareegto xagga galbeed u wareegto laakiin maalinka jumcada waa tukan kartaa salaadahan aan soo sheegnay maalinka jumcada xilligaas qoraxdu kala barka joogto waa tukan kartaa laakiin maalmaha kale ma tukan kartid waayahay salaadaha sunnooyinkan soo sheegnay wa cinda salaati subxi salaada subax ka bacdina ee agteedana yani wa bacda salaati subxi laga wadaa salaada subax ka bacdina ma tukan kartid lama tukan karo salaadu waa xaaraam xataa tatluca shams qoraxdu ilaa ay soo dhalato tani waxay ku xiran tahay ficiloo yacni haddii aad salaada subax tukatid salaada subax markaad tukatid kabacdi sunno aan sabab lahayn iyo mid sababkeedu ka dambeeyo ma tukan karto ilaa qoraxdu ka soo baxdo laakiin salaada subax haddaad soo dibdhigtid oo qoraxda ku soo dhaweyda soo bixideeda intii ka horeyda waxaanoo dhan waa samayn kartaa sunnooyinkanoo dhan waa samayn kartaa sidoo kale salaada subax markaad tukatid kabacdi haddii raatibadii subaxa aad hore ka tukan gadaasheeda waa ka tukan kartaa dhib male wa bacda salaati alcasri wa bacda salaati subxi tii hore waxay ahayd wa cinda salaati subxi wuu 2 jeer soo celshay wa bacda salaati alcasri kitaabka waxbuu isku qasay kitaabkan waxbaa ka qaldan waxa weeye wa bacda salaati subxi salaada subax ka bacdi lama tukan karo xataa tadluca shamsu qoraxdu ilaa ay ka dhalato taas waa mid waxaa la mid ah wa bacda salaati alcasri salaada casir ka bacdina lama tukan karo xataa taqruba qoraxdu ilaa ay ka dhacdo oo waxa weeye qoraxdu markii ay casir markaad tukatid kabacdi ilaa qoraxdu ka dhacdo sunnooyinkan ma tukan kartid haddaba casir tukato ilaa qoraxdu ay ka dhacdo sunnooyinkan ma tukan kartid waxaa hadda marka meeshan kitaabku uusan sheegin oo nusqadan waa qaldan tahay ku jira wa cinda alisfiraari markii qoraxdu ay casirka kabacdi boorboor noqoto ay sii dhacayso salaadan sunnada lama tukan karo xataa taqruba shamsu qoraxdu ilaa ay ka dhacdo oo waxa weeye haddaad xataa casir tukan waqtigaas casirka kabacdiya ee qoraxdu ay sii dhacayso boorboorka tahay sunnooyinkan ma tukan kartid sunnooyinkan ma tukan kartid
laakiin casirka haddaad dib dhigtid ilaa isfiraarka waqtigaas boorka aad gaarsiidid inta casirka aad ka tukatid ka hor waa sii tukan kartaa sunnada waxyaalahan aan soo sheegnay haddaad casirka waqtiga bilowgiisa ka tukatidna waqtiga casirka aad tukatid kabacdi sunnooyinka aan soo sheegnay ma tukan kartid laakiin casirka sunnadiisii oo kale haddaad horey ka tukan gadaal waa ka tukan kartaa taas dhib male saktaatu salaati faslun fasalkan wuxuu ka waramayaa dhowr jeer oo aamus ay sunno tahay salaada dhexdeeda waa kan wuxuu yidhi saktaatu salaati salaada aamusyaalkeeda 6 weeye 6 jeera aamus sunno yahay kow bayna takbiirati ixraami xirashada takbiirteeda allahu akbarta iyo wa ducaa'i liftitaaxi furfurashada ducadeeda dhexdooda waxaa ahaaday saktatun aamus yacni markii aad allahu akbar tiraahdid inta aadan ducadii furfurashada bilaabin ducadaasi ha ahaato wajahtu wajhi ha ahaato subxaanaka allahuma wabixamdika haddii ha ahaato alxamdulilahi xamdan kathiiran waxay rabto ahaato ducadii adiga midda aad taqaanid ducooyin badana nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam intaada akhrin allahu akbar haddaad tiraahda intaada ducadaas furfurashada bilaabin waxaa sunno ah wax yar inaa aamustid kow wa bayna ducaa'i liftitaaxi furfurashada ducadeeda iyo watacawudi acuududii alla magangalkii dhexdoodana saktatuna ahaato aamus yacni markii aad ducada aad ku furfuratay dhammaydid wajahtu ha ahaato ilaa ducadaas waa sunna waajib maaha markii aad dhammaydid qofkii aan aqoon yani salaadiisa yuuska walwalin laakiin waa fiicanta inuu barto markaad ducadaas dhammaysid intaadan acuudu billaahi min ashaytaani arajiim dhihin wax yar aamus wa bayna alfaatixati faatixada iyo watacawudi alla magangalkii acuududa dhexdoodana saktatun aamusida ahaatay markii aad acuudu billaahi min ashaytaani arajiim tiraahdid intaadan faatixada bilaabin wax yar aamus wa bayna aakhiri lfaatixati faatixada dhammaadkeeda iyo wa aamiina aamiinta dhexdeedana aamusa ahaaday oo markii waladaliin aad tiraahdid intaada aamiin dhihin wax yar aamus haddana aamiin ka bacdi dheh wa bayna aamiina aamiinta iyo wasuurati suuradda aad akhri doontid markii suurad sunno tahay dhexdeedana aamusa ahaaday hoda aamiin marki aad tiraahdid intii aadan suuradda bilaabin wax yar aamus wa bayna suurati suuraddii aad akhrinaysid markaad dhammaysid iyo warukuuci rukuuca inta ka dhexlana aamusa ahaadoo markaa suuradda aad akhrisatay waqtiyadii suuradda sunnada ahayd markaa suuradda dhammaysatid wax yar aamus ka bacdi rukuuca aadoo allahu akbar dheh faslun hadda waxaan baranaynaa imise jeer xasilka salaada la rabaa 4 jeeraan soo sheegin 4tiaan baranayna 4 yihiin okay xasilse maxaa leedahay al arkaanu tiirarkii allatii arkaantaasoo talzamu ay waajib tahay fiiha arkaanta dhexdeeda aduma'niinatu xasiloonidu 4 weye 4 jeera xasilooni qasabtay salaada dhexdeeda kow alrukuucu waa foorarsigii markii aad foorartid inaad ku xasishid inta faatixadii iyo suuraddii akhrisa markaad soo foorsato jilbaa qabsatid waa inaad ku xasishaa haddaad hore soo foorsid hore ka laabatid salaadaadu eber weeye walictidaalu ictidaal weeye markii aad soo toosaysid samica allaahu liman xamida aad leedahay ayadana ee aad istaagtid oo samica allahu liman xamida kabacdi aad istaagtid ku xasil intaada sujuudda aadin meeshaas waxaa isku baraarujin mudan markii lasoo toosaya samica allahu liman xamidahu ayaa imaamku leeyahay dadkii kale maxaa laga rabaa imaamka same intaasay ugu eg tahay annaga madhabkeena shaaficiyada waxaa sunno ah imaamku markuu soo toosayo inuu yidhaahdo samica allahu liman xamidah markuu istaagana rabbanaa walaka alxamdu uu yidhaahdo oo uu ku daro dhammaystira ducadaas ma'muumiinta laftigooduna markay soo istaagayaan madhabkeena shaaficiyada samica allahu liman xamidahu waa leeyihin markay istaagana rabbana walaka alxamdu waa leeyihin maxaa yeele xadiid saxiixoo abi daawuud ku yaala sidaas nabiga calayhi salaatu wasalaam looga wariyey oo axaadiidta ishaa tilmaamaysa markii imaamku samica allahu liman xamidahu yidhahdo adinku rabbana walaka alxamdu iraahda waxaa culammadu ku fasiraan maca maa calimtum min alimaami waxaa imaamka kasoo ogaateenoo imaamku intii uu yiriyoo kale markii aad tiraahdaan oo samica allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu iraahda markaa istaagtaan
maxaa xadiid saxiix oo abi daawuud iyo ku yaala sidaas nabiga calayhi salaatu wasalaam looga wariyay inuu isku daray. marka in la isku daraa sunna madhabkeena shaaficiyada. haddaan isku darinna waxba salaadada waxba uma dhibayso. dadka marka qayba waxay arkaan dad oo markii ay imaamku soo istaagay rabbana walakal xamdu kaliya aan dhahayna samca allah liman xamdu ayaguna dhahaya markaasay ku leeyihin dadka laga wacdiyo. marka ayagaan wacdisnaynba kuwaas dhib male qofku waa sunna anaga madhabkeena waana xadiid saxiix oo nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam. waayahay marka rukuucda oo foorarsiga iyo ictidaalka iyo wasujuudu sujuudi sujuudana waa inaad ku xasishid oo markaa wejiga dhulka dhigtid horaha ka soo laaban. waljuluusu fadhigina waa lagu xasilayaa bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeyey kaasna waa in lagu xasilaa. xasilooni maxaa la yidhaha hadaba waa tan aطma'niinatu xasiloonidu da mahanaya hiya xasiloonidaasi sukuunun waa xasil bacda xarakatin dhaqdhaqaaq ka bacdi la xasilo. markii aad foorarsanaysid dhaqdhaqaaqa ka timid sooman xasil. marka aad sujuudaysid dhaqdhaqaaqa ka timid xasil. markaad foorarka kasoo toostid xasil. markaad sujuudda kasoo toosid xasil. bixayثu meel ayuu ruuxu xasilayaa yastaqiru uu xasilayo oo sugnaanayo kullu cudwin xibin kastaahi maxalahu meeshii loogu talagalay uu ku xasilayo biqadri subxaana allah subxaana allaahi intii la yiraahdo oo kale uu xibin kastaahi xasilayo. lakin waxa la diidaa waa foorarsatay xibinihiioo saa u kala baxaad soo celiday ama intaad xibnuhu isgelin aad laabatay intaan xasilba la helina subxaana allah waqti la dhihi karo aadan joogin haddaad laabatid hawshaasi iskuma toosna. marka salaadeenna aan ku dadaalno. sidaa darteed haddii qof uu yimaado imaamkoo foorara oo rukuucsan ee uu salaada ku xirto markii aad xirato aad adigu soo foorarsatay haddii imaamka aad kula sii xirnaatid biqadri subxaana allah intii la yidhaahdo ragcadaas waa kuu jirtaa subxaana allahi oo si tartiiba loo yidhaha. laakiin markaad soo foorarsataba intaan subxaana allah la dhihi karin haddii uu imaamku hore kasoo toosay ragcadaas kuma jirto waxbaha isku sii dhejin dib waa inaad uga soo dartaa salaada. insha allahu tacala ilah waxaan weydiisanana inuu diintana nafahansiiya casharkan intaas ku wabina wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.